madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu ku dhawaaqay istiraatiijiyadiisa ku aadan sida looga hortagi doono weerarada Al-Shabaab iyagana loo weerari doono. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo waraysi Muqdisho ku siiyay wargeyska caanka ah ee The Economist ayaa sheegay in Al-Shabaab ay si weyn ugu dhex milmeen deegaanada ay maamulaan. madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in tallaabadiisa koowaad ay tahay sidii Al-Shabaab looga riixi lahaa dhulka ay haatan joogaan oo loogu riixi lahaa xagga miyiga, isagoo sheegay tallaabada labaadna inay noqon karto in la furo wadahadal u dhexeeya Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu sheegay dagaalka Al-Shabaab ficil ahaan inay qaadan karto sanado badan, wuxuuna tilmaamay Al-Shabaab inay leeyihiin adkaysi. wuxuu sheegay canshuurta ay Al-Shabaab ka qaadaan dadweynaha ku nool dhulka miyiga ah inay caruurtooda ka askareeyaan, sidoo kalena ay ka qaadaan magaalooyinka waaweyn canshuur xad dhaaf ah. wuxuu sidoo kale wariyay deegaanada ay maamulaan inay ka jiraan maxkamado iyo adeegyo aasaasi ah. aragtidaydu waa in meesha aynu ka saarno mabda'a Al-Shabaab oo aan tusno dadka in dowlad ay ilaaliso caqiidadooda. tani waxay la macno tahay in la qaado dagaalka foolka foola, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh oo tegay Baydhabo iyo weliba Dhuusamareeb ayaa waxaa si isku mid ah uu sheegay in dowladdiisa ay qaadi doonto dagaal ka dhan ah ururka Al-Shabaab. madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa isagoo muddo kooban jooga xukunka wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab, laakiin Al-Shabaab ayaaba xoojiyay dagaalkii dowladda ka dhanka ahaa oo qaraxyo magaalada Muqdisho ku ruxay.